Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo mowduuc qiimo badan. Sidee jabiye ku noqon karaa ama sidee hakar ku noqon karaa? waa su-aal boqolkiiba sagaashan ay isweydiinayeen dadka xiiseeya arrimaha hakinka. su-aashaas jawaabaheeda si aad u hesho ila soco waxyar. qodobka koowaad bara aasaasiga kombiyuutarka. Tusaale, waxaad u baahan tahay inaad baratid operating systemska sida Linux, Unix iyo Windows. Sidoo kale bara luqadaha programmingka sida OpenIDEA, baro HTML-ka, Python-ka iyo luqadaha la midka ah. Qodobka labaad, yeelo dhaqanka jabsadaha. U fikir si hal abuur leh, think creatively. Sidoo kale akhri khiyaaliga sayniska, baro inaad jeclaatid xalinta dhibaatooyinka sida gameski wixii la mid ah. Akhri qodobada ama buugaagta. Qodobka saddexaad, u jabi si qurux badan. Marka lagu leeyahay u jabi si qurux badan, macnaheedu waa in aan wax tixraac ah laga helin jebintaada, waana sababta hakinka ama dadka hakariska ah ay u qarsadaan wejiga iyo gacmahooda si aan faro looga helin. waxaa jiro farshano kala duwan oo Linux ah kuwaasoo ay adeegsadaan hakariska. waxaad u baahan tahay inaad la socotid abdeedkii ugu dambeeyey iyo softwareadii ugu dambeeyey ee ay adeegsanayaan dadka hakariska ah. Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa 10 operating system oo ah Linux softwares ama Linux operating systems. La socod wanaagsan. injineere, ma og tahay hakarka aad raadinaysid adiga ayuu kugu dhex jiraa. fadlan hakinka gudahaada ka soo saar. hakinka hakarka lagu sheegayo waa adiga. Aqoontu waa free. Knowledge is free. YouTube channelkan waxaad ka heli kartaa cashiro badan sida cyber security, networking, HTML iyo software la xiriiro hakinka.